بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكسود وهذا ورئيسي أنا يلا دونو وزيرك وزارة قاديدك iyo duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya mudane Duraan Axmed Faarax waxaana wasiirka wax badan ka weydiin doonaa wayihiisii ciyaareed intii uu markaasi noolaa iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta gaadiidka oo si weyn sanadkan marka uu wasaaradda la wareegay uu gacan ku siiyay sidii ay markaasi ugu mid noqoleed kooxaha wali sii joogaya horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya mudane wasiir marka hore ku soo dhaw Astaan Sports adigu aad u mahadsan waxaan kaaga mahad celinaynaa fursadan wareysiga aad baad mahadsantihiin Astaan Sport oo aad baan idinkaga mahad celinayaa booqashadiina maanta soo booqateen iyo sida wanaagsan oo dhalinyarada iyo ummadda aad ugu baraarujisaan qiimaha sportiga u leeyahay aad baad mahadsantihiin wasiir marka hore waxaan siisaa warbixin kooban naga sii taariikhdaadii nololeed ee dhanka sportiga bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsan tahay runtii waxa weeye sportigu waxyaabaha ilaa yaraanteeda aad u jeclaa waa laga yaabaa doono inaan heer professional gaarin laakiin ilaa heer school iyo degmooyinka iyo maxaa la yiraahdaa juniorka inay ahayd laakiinse waddankan oo yarna waan ka tegey laakiinse inta badan sportiga maamulkiisa inaan maamulo maadaama qeybo badan oo sportiga maamulistiisan ay u badnayd marka inta badan waddanka dibaddiisa waddanka Ingiriiska oo aan waqti hore tagay waxyaabaha ugu muhiimsan oo sportiga markaas aan si weyn ugu soo noqday marka laga dhaafo hobbigiisa iyo ciyaartiisa iyo waxyaabaha loo yaqaan Sunday Leagues laga ciyaarayo marka laga soo tago laakiinse sagaashameeyada bilowgeedii dhalinyaro badan oo dad fara badan oo Soomaaliya oo dhalinyaro yar ay ku jiraan oo waddanka ka soo tagay ay dhib ku tahay inay la qabsadaan waddankaas cusub ay yimaadeen oo maadaama waxa laga yaabaa waddanka burburka iyo dhibaatooyin ka dhacay dhalinyaro da'dooda xoogaa ay weyn tahay oo ilaa ay dhowr iyo 10 jir inay yimaadaan marka way kala duwan yihiin systemka ama qaabka wax looga barto dalkeena iyo way kala duwan yihiin iyo waxbarashada waddanka Ingiriiska taale qofka waddankan waxa laga yaabaa hadduu asagoo weyn yimaado inuu fasalka koowaad ka bilaabi karo laakiin halkaas waxa laga bartaa waxay ahayd qofku da'diisa loo xisaabiyaa markuu 4 jir yahay ama 5 jir yahay waa inuu fasalka koowaad joogo hadduu laakiin 10 jir yahay ilaa fasalka shanaad ama lixaad waa inuu ka bilaabo marka qaar waxa laga yaabaa inay ka bilaabaan fasalka tobanaad ka bilaabaan isagoo weligiis iskoolba tegin meel iskool ugu dhigayo arag glass aan arag waxba aan garanayn marka inay dhib ku noqoto inuu qabsado midda kale markaas inay waddankaasna iyagana waxa dhib ku noqonaysa inay arkaan qof weyn oo intaan da'diisu laag tahay oo waxba soo baran marka clashka ka dhaxay labadii system oo kala duwanaa marka inaysan ilmihii waxbarashadiina aysan ka cararin qolyahan kalena si ay u bartaan inay jiraan dad noocaas oo kale marka waxaan u sameynay kalaabyo wala wax ku bartaan waxbarashada looga soo gaarsiiyo iyo maadaama ay waqti badan hayaan nin sport loo sameeyo marka run ahaantii kooxo waxaa jiray aad iyo aad xaggaas uga sameynay oo waliba Ingiriis kale maahan Europe oo dhan aad uga fiicnaa run ahaantii aan rabnay dhalinyaradaas inay uga baxaan dhibaatooyinka iyo maxaa la yiraahdaa waqtigooda ay faraaqada yihiin in wax fiican oo positive looga sameeyo taas ayadoo joogto marka waxaan isleeyahay sanadkii 2002 guddiga Olombikada Soomaaliyeed inaan xubno ka noqono ka caawino maadaama waddankuna uu dhibaatooyin u jiray sportiga markaas si fiican u soo kacay inaan guddiga inaan Soomaali sportiga wax ka caawino marka xaaladda 2002 ayaa dad aan kamid ahay yaa waxaa loo soo bandhigay inay guddiga Olombikada ay qayb xubno ka noqdaan ayna kala shaqeeyaan markaas yaa guddoomiye ku xigeen u qaabilsan arrimaha caalamka arrimaha international relationska ayaa markaas aniga lay doortay intaas waxa ka dambeeyay marka waxaan la shaqeynay guddiga Olombikada Soomaaliya marka sportiga Soomaaliya iyo kan dibadda sidii loo sugu xiri lahaa ayaan aad uga shaqeynaynay waan garan xasuustaa ilaa 2004 2005 kooxaha national teamka qaranka dibadaha aad ayaan ciyaartooy u soo diri jirnay macallimiin wax kala caawiyo aan kala shaqeyn jirnay haddana markii ilaa 2012 markii uu dhintay guddoomiyaha Olombikada qaraxo ku dhintay Ilaahay u naxariistay Aadan Xaaji Barowish markaas ayaa waxaan noqday guddoomiyaha Olombikada xilligaas ka bacdi markii doorashadii dambana ay dhacsana waxa hadana la doortay xogayaha guud ee guddiga Olombikada Soomaaliyeed marka runtii ahaantii waxaan isleeyahay waqtiyadaas kooban oo waxaan isleeyahay waxyaabo badan ayaa laga soo qabtay waddankuna maadaama burbur uu galay baahsan sportigu wuxuu kamid ahaa institutionadii aan baabi'in oo burburin runtii maadaasna ilaahay ka soko waxaas kale dadkii sportiga oo u istaagay oo
inaysan Soomaaliya calankeeda uusan adduunka ka maqnaan sida ciyaaraha internationalka caalamiga hadday yihiin kuwa regionka iyo kuwa Africa guud ahaan iyo kan kuwa adduunka iyo Olympicada in markasta calanka Soomaaliya uu ka muuqdo muhiimadeeda ay leedahay waxaad muhiim weeye marka run ahaantii intaan sportiga kusoo jiray ilaa waqtigaas yahay waayo wasiir hadda kooxda gaadiidka waxay ka qayb galaysay dhawaan horyaalka Soomaaliya adigoo waqti kooban markaas wasaaradda joogtay marka ka waran kooxda gaadiidka hawsheeda waad mahadsan tahay runtii saan wada ogsoonahay kooxda gaadiidku waxay ka mid tahay kooxaha ugu faca weyn kooxaha ka jira dalka run ahaantii oo kooxii ugu horeeyay oo lagu aasaasay inay ciyaarta kubadda cagta waddanka ay ka ciyaaraan ayay ka mid ahayd kooxii ugu waaweyn ayay ka mid tahay kooxaha ugu faca weyn nasiib darro waxa weeye markii burburku yimid waxyaabihii warwanaagsanaa oo burburay ayay ka mid ahayd sportiguna waa ka mid ahaa marka kooxii dib loo soo nooleeyey ayaa iyaduna ku jirta oo ay ka mid ahayd marka waxaa loo baahan yahay sidiisaba sportiga mushkilada ugu weyn oo na haysata waxay tahay sportiga qaabab lagu socodsiiyaa jira marka markastana waa sheegi jiray adduunkan hormaray sportiga waxaa lagu hormariyaa uu ka shaqeeyaa waxyaabaha loo yaqaano sponsorshipka sida TV rights ka aan rajaynaynaa dee in maxaa la yidhaha stan iyo TV-yada lamidka in sportiga maalgelin doonaan haddii ilaha yidhahdo waxyaabaha ay kooxaha ugu waaweyn oo internationalka oo maxaa la yidhaha professional leagues kale waxyaabaha ay ku horumarsan yihiin waxaa kamid ah sponsorshipskaas TV rights ka mid yahay gateska iyo albaabada wax lagu soo galayo lacagaha lagu soo galayo ay kamid tahay maxaa la yidhahdaa corporate maxaa la yidhahdaa sponsorshipka hay-ada waaweyn oo raba inay ku xayeysiistaan marka dowladuhu wax yar waa geliyaan laakiinse wax boqolkiiba 5 dhan ma aha ma aha intaas waxay horumarkooda qayb weyn ka qaata waa xayeysiimahaas iyo sponsorshipska wax loo yaqaan wadamada soo koraayo ama Africa iyo kuwa yar oo leh sportigu uusan gaarsiisnayn heer elite sports waxa la yiraahdo uusan professionalka uusan ahayn waxyaabaha ay wadamadooda iyo dowladahooda ayaa inta badan maalgeliyo oo waxyaabaha lagu socodsiinayo geliya mushkilada haysata Soomaaliya waxa weeye labadiiba midna ma haystaan run ahaantii waxyaabaha sportigu uu ku shaqeynayo oo ku socdo waa dadaal ay dadka sportiga ka shaqeeya ay sameynayaan oo dheeriya qofkii ka shaqeynaya ayaa garan kara marna waxay dhaliilahayaan xiriir kubadda cagta saan muusan sameyn ciyaaro ma ka yeelin waxba ma sameyn waxa laga yaabaa waxaan maqli jiray habar fadhida lagdan la fududa dhibka iyo howlaha iyo waxa laga soo maray inuu sportiga Soomaaliya uu jiro dadka inta badan ma fahamsana marar baan xasuustaa inuu bilowgii 2004 iyo 5 ayagoo raba maamulka xiriirka kubadda cagta si aysan Soomaaliya aysan uga harin tartamada si ay u joogaan ay u aadaan wadamo kale oo intay raacayaan maxaa la yiraahdaa lug xataa ku baxaya oo Zanzibar iyo mar u socdaan doomo raacaya ay leeyihiin waxaan u baahan cid ka caawinaysa aysan jirin dadka Soomaaliyeed oo dibadda jooga ilaalan haddii aanan sportiga aanan maanta tartamadan ka qayb galin meelo hoose ama nala gelin ama magaceena uusan ka muuqan baa laga yaabaa marka dadaalada intaas la eego dadka ay u soo sameynayeen run ahaantii waxaan is leeyahay waxa ay ku intay qaban kareen way qabteen hadda waxaa la rabaa sportiga haddii uu la rabo inuu horumar gaaro maadaama uusan sportiga elite sports oo professional uusan ahayn oo corporate maxaa la yiraahdaa sponsorship uusan lahayn uusan haysan muhiimadda ugu weyn waxay tahay inay dowladdu inay ka dhigto budgetedeeda ugu muhiimsan inay geliso sportska waxyaabaha uu sportigu qaban kara ama uu bedeli karana waa yar yihiin wax sameyn kara oo sportiga qaybta ka qaadan kara dhan walbaba hadday ahaan lahayd amniga hadday tahay caafimaadka hadday tahay dhalinyaradii iyo isdhexgalkii bulshada hadday tahay akhlaaqdii iyo disciplinkii dhalinyarada hadday noqon lahayd marka in la fahmo ayuu u baahan yahay marka haddaan usoo noqdo su-aasha ay weydiisay gaadiidku waxaa kamid ah kooxoy la soo celiyay laakiinse waxaan is leeyahay gaadiidka iyo kooxo kaloo badanba waxa ay mudnaayeen iyo sida ay u mudnaayeen inaan ama loo maamulin ama baahiyahoodii iyo wixii asaasiga ay u baahneen inaan loo dhammaystirin marka run ahaantii anigu markaan imid oo wasaaradda aan imid waa la fadhiistay dhalinyarada iyo kooxdii iyo maamulkoodii waan is aragnay waxyaabaha ay sheeganayaan markaa aragtid waa qalbi xumay kugu dilaayeen marka inay u baahan yihiin ayadoo waxyaabo yaryar oo aan macno lahayn oo la heli karo inay qaabkaas ay u noqdaan waxyaabaha hadda aan aad iyo aad sportigu quruxda waddanka iyo waddanka imagekiisa uu ku hagaajinaya waxaa kamid ah
inay dhalinyaro Africa daacaladeeda jooga ama wadamo ka fog jooga inay usoo shaqo doonanayaan Soomaaliya inay imaanayaan loo soo shaqo doonay wadankeela nabad ma ahan lama aadi karo marka ciyaartooy Ghana iyo Nigeria iyo meelo ka fog ka imaanayo rabo inay Soomaaliya sport league-geeda in usoo shaqo tagaan waxay ka mid tahay image-ka iyo wadanka sharaftiisa inay qayb horumarkiisa qayb weyn ka inay tahay marka taas waxyaabahaas Cumar utilization lagu sameeyo oo laga faa'iideysto inaysan khasaarin marka hadda waxaan isleenahay dhalinyarada markaan wada fariisanay iyo maamulkii waxaan ka ballanay waxyaabaha asaasiga ah oo tiimku u baahan yahay in loo dhameystiro oo aysan hawlahaas aysan ka fakirin qofka ciyaartooyga hadduu uu ka fakarayo nolol maalmeedkiisa iyo familkiisa iyo reerkiisa iyo wax cun la uu ka fakarayo lagama sugaayo marka inuu performance fiican iyo inuu si fiican u ciyaaro qofku markuu ciyaari karo ciyaar fiican ciyaari karo waa marka uu isleeyahay waxyaabaha yaryara oo basic ah asaasiga ah ay u dhameystiran yihiin ayuu ka fakari karaa mentalitigiisa uu soo celin karaa marka kooxdu waa koox magacan ku lahayd wadankana markii horena magac ku lahayd haddana aan rabno magaceedii iyo qiimaheedii in la soo celiyo iyadoo la rabo inay iska kaashadaan dhammaan hay-adaha ku xeeran ama la shaqeeya wasaaradda gaadiidkaba inay qayb ka qaataan mug leh ay ka qaataan oo ay kooxda say u noqon lahayd waa ku ballanay inay sanadkan ay ka badbaadaan inay hoos u noqdaan laakiin sanadka hadda soo socda inay noqon doonaan baan rabnaa haddii ayada kooxaha ku tartamaya ama ku haradamaya inay hantaan koobka Premier League insha Allah taala taasna balantaasna inaan wada fulin doonaa ila tahay wasiir inta ciyaaraha ay socdeen waxaa la arkay adoo garoonka joogtid dhiirigelinaya ciyaartooyda iyo macallimiinta xilliga bedelka lagu guda jiro marka dhiirigelintaada waxay ku keed kooxda inay ka badbaadayso horyaalka mise dhiirigelinta ka weyn ayaa sameyn doontaa ma waa ila tahay fiiri sportiga siisaba waa dhiirigelin qofka waxaa la rabaa in niyadda loo dhiso dhalinyarada waa ciyaartay ku jiraan run ahaantii maalinkaas ciyaarta ay ciyaarayeen ciyaar waxay ahayd ciyaar waxa loo yaqaan la yiraahdo 6 pointers 6 dhibcood oo kale u xisaabsan yihiin waa 6 pointer wala marka haddii maalinkaas laga badin lahaa waxaa laga yaabaa inaysan rajo fiican lahayn oo ku noqon lahaayeen heerka labaad marka inaan la qaybsado dhiirigelintaas la qaybsado oo aan la wadaago runtii meelo badan iyo wax rafaadi badan baa usoo maro jidad xiran oo meelo la mar aysan lahayn iyo security darro badan oo jirtay laakiin intaasoo dhan waxaan ka biday dhalinyarada maadaama ay maalin ay tahay loo baahan yahay in la wada joogo oo run ahaantii dadaalkaas effortkaas uu wada muuqdo marka waa in aanu ka dhex muuqdo hadii aan inta ka maqda guriga iska fiirsado guriga fadhiyo ayaguna ay dadaalkaas iyo hawshaas ay ku jiraan waxaa ka fiican inay arkaan inaysan keligood aysan hayn garab taaganahay mar kasta iyo meel kasta inaan garab taaganahay runtii waa laga yaabaa inay dhiirigelin inay noqoto waa laga yaabaa waana muhiim anigu mar kastana haddii ay security-ga iyo ay saamaxayaan mar kasta iyo meel kasta ay joogaanna inaan la joogo haddii ilaha yidhaahdo waa jecelnahay tan kale dhiirigelinada kalena waxa weeye inaan isku xil saarnay oo aan ballan qaadnay in haddii ilaha yidhaahdo waxyaabaha ay u baahan yihiin oo asaasiga inaan u dhammaystirna haddii ilaha yidhaahdo kooxdu waxay u baahan tahay oo dhan waxay is leedahay potential fiican bay leedahay waana ku wada dhiirigelinaynaa kulli hay-adaha la xiriira ama la shaqeeya wasaaradda gaadiidka iyo duulista dhammaantoodba inay qayb ka qaadaan mas-uuliyadda ay iska saaraan sidoo kale dowladda kaliya maahan dadka ganacsatadaana waxyaabaha jira waxa la yiraahdo corporate social responsibility dadka wadanka ka ganacsada oo maalka iyo xoolaha ka hela waxaa saaran mas-uuliyad baa saaran inay waxyaabaha socialka inay garab istaagaan oo ay garab siiyaan sportiguna wuxuu kamid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo socialkaas wax badan ka qaban kara ayay u baahan tahay way fiicnaan lahayd madaxweynayaasha iyo dadka maamulada iyo inay fiirsadaan film la yirahdo Invictus oo laga sameeyay Nelson Mandela markuu madaxweynaha noqdo ka bacdi wadankiisa sidoo sportiga wadankiisa oo kala baabi'i lahaa oo kala jabi lahaa oo laba qayb kala noqon lahaa sidoo ugu miday sports ugu miday waxa boqolkiiba boqol inay South Africa hadda jirta ay noqoto waxyaabo ugu muhiimsan ugu weynaa waxa sportiga ciyaaraha rugby-da oo markaas lagu qabanayo wadankooda ayuu uga faa'iideystay 1995 marka qaabku uga fikirayay iyo sidoo leeyahay hadaladiisi sportigu inuu leeyahay power wax kale lamid aysan lahayn sidoo dadka isugu keeni karana wax isugu keeni karaan inaysan jirin marka run ahaantii haddii taas loo fahmo waxaan is leenahay wadankeena horumar fiican waa qaadan lahaa dadka iska dhexgalkooda iyo dhalinyarada wanaajintooda iyo akhlaaqdooda caafimaadka qayb inuu ka qaato sidaas kalena waxa weeye waa institutionada ama sectorska hadda adduunka ugu taajirsan weeye
adduunka meel laga helo qof 1 milyan qaadanaya oo dollar bishii wiigi asbuuci qaadanaya madaxweyne iyo ciduu rabo ahaaday institutional sector ka jiro aan sportiga ahayn ma jirto. marka waxaan isleenahay in wuxuu u baahan yahay si fiican loo garab istaago sidii loo dhisi lahaa sportiga. weli su-aalihii kooxda gaadiidka ayaan mareynaa, balse su-aasha ugu dambeysa gaadiidka aan kaa weydiinayo, kooxda gaadiidka koox nooca ayaa ka rabtaa in noqoto? kooxda gaadiidka waxaan rabnaa inay noqoto koox aan isleenahay koox u dhammaystiran waxyaabaha looga baahan yahay kooxa ama clubka looga baahan yahay. waxaan rabnaa inay noqoto koox dhalinyaradu iyo meel kasta adduunka dadka joogaaba inay ay jeclaadaan intay jeclaan lahaa inay fiirsadaan Barcelona iyo wax kale ka duwan iyo fiirsadaan inay kooxda gaadiidka ama u ciyaaraan ama ciyaaraha ay fiirsadaan. Nigeria haddii la yiraahdo in ciyaartoy fiican oo Soomaaliya wanaagsan in la soo saaro. muhiimadda ugu weyn waxay tahay way fiican tahay ciyaartoy ajnabi oo inay yimaadaan oo ciyaaraha ka qayb qaataan, laakiinse dhalinyarada Soomaaliyeed oo talentiga fiican leh sidii loo talentigoodaas iyo hibada sportiga ay leeyihiin sidii looga soo saari lahaa, macallimiin fiican loogu raadin lahaa. marka koox ciyaartoy ciyaar wanaagsan oo kooxaha aan isleenahay gaadiidka waxaa laga yaabaa wixii ka horreeyay 70-yadii iyo waxyaabahaasi ku fiicnaa markay koobabka qaadi jireen, laakiinse sanadaha soo socda hadii la inay horyaalka ay si fiican u qaado koox horyaaladaas ku tartami karto oo qaadi karta inaan ka soo saarno ay noqoto ayaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo. wasiir, waxaan xasuusanaa inaad jawooyin kala duwan ka soo qabatay guddiga Olombikada qaranka Soomaaliya. haddaan dib ku celiyo sanadii 2008 ciyaarihii ka dhacay Beijing Shiinaha, waxaa ahayd xoogayihii xilligaas guddiga Olombikada haddaan qaldaneen. ka waran xasuustaadii qaabka ugu qayb gasheen iyadoo markaasi Soomaaliya aysan heerka hadda joogto aysan wadan ahaan ahayn? waad mahadsan tahay, runtii waa su-aal fiican. 2008 waxay markii ugu horreysay ciyaar Olombikada horta aan ka qayb galo Person aan tagay ka mid ahay. labadii ka dambeysay London iyo Rio nasiib ayaan yeeshay inaan ka qayb galo. markaas xoogay ma ahayn, markaas waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad Olombikada ayaan ahaa. markaasna waxaan ahaa loo yaqaan chef de mission, qofkii mas-uulka ahaa delegationka waqtigaas meesha tagayaan mas-uul u ahaa. run ahaantii waxay ahayd khibrad aad u wanaagsan, qiimo iyo sharaf gooniyana waa ay lahayd. taas ka qaybgalkaasna oo wadankay matalaya oo meel ay isugu imaanayaan 100,000 oo qof ay isugu imaanayaan, billions qof ay adduunka daawanayaan, 2 bilyan iyo ka badan ay daawanayso. sharaftii qiimo ugu badnayd aan isleeyahay aan dareemi karo marka igu proud moment ay ahayd waqtiga igu fiicnayd in maxaa la yiraahdaa waqtigii la marahayay inaan qofka calanka Soomaaliya inaan qofkii waday inaan ahaa sharaf iyo qiimo aad u ballaaran bay leedahay. 2 bilyan oo qof ka badan ay daawanaysay adduunka, garoonka ilaa 200,000 oo qof ka badan ay ku jirtay. run ahaantii waxay ahayd qiimo gooni ay ahayd. waxaan isleeyahay marka Soomaaliya mar kasta waxaa aad loogu dadaali jiray guddiga Olombikada uu ku dadaali jiray sportiga meelaha loo isku imaanay inaan laga maqnaan. kaliya waxaan rabaa inaan saaxiibaday aan ku dhiirigeliyo aan ku booriyo, waxaan rabaa meeshii hal mar la joogo in hore looga durkaa loo baahan yahay. waan dareensanahay oo inaysan jirin financial support iyo resource badan inuusan jirin oo aan lahaynin qarashaadkii dad fiican lagu soo saari lahaa. hadda saad u arkayseen ciyaaraha ugu dambeeyay Olombikada lagu qabanayay Tokyo, dhalinyaro badan oo Soomaaliya joogtay. markastoo la tagana dhalinyaro badan oo Soomaaliya timaada oo laga soo wadamo kala duwan matalaya. siiba waxa loo yaqaan track and field ama ciyaaraha fudud. marka waxaan isleenahay wax badan ayaa laga qaban karaa haddii ay helo supportigii iyo taageeradii loo baahnaa haddii la lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo kale oo wadamada kale biladaha u qaadahaya inaan wadankana inaan u sameyn karno. marka in dadaalkaasna in la sii badiyo oo waxaan naloo ogolaya markasta markaan tegayno waxaa jira sharci maadaama ay Soomaaliya xubin ka tahay guddiga Olombikada. waxaa qof kasta wadan kasta oo xubin ka ah 205 wadan oo xubnaha ka ah waa inay matalaan oo yimaadaan. marka haddii aadan lahayn ciyaartooy qualification soo marta oo sida reeb soo gasho oo ka soo baxda si aad u timaadid waxaa la yiraahdaa 2 qof oo universality place la yiraahdo loogu talagalay ayaa lagu ogol yahay. 2daas qof marka xataa waxyaabaha contact gameka oo khatarta ama waaweyn oo kale ma leh. orodada dhaadheer oo 10,000 iyo wax ka badan kuma jiraan. marka run ahaantii sanad kasta 2 qof wiil iyo gabar ayaa noo tagi jiray. inta badan
track and field sanadkan waxaa ku jirtay Ramla Cali oo feerka boxingka runtii aad bay u fiicnaayeen labadii iidow yara iyo Ramlaba si aad bay u fiicnaayeen oo waxaan isleeyahay sanadihii hore ciyaartooydii la geen jiray sanadkan xogaa waa ka horumarsan laakiin waxaan markasta ku tala jirnay oo waan xasuustaa markaan sameynaynay strategic plan 2009 iyo 2010 waxaa markasta noogu qornaa qorshe howladeeda waxaa ku jiray in looga qayb galo universality place ka laga baxo in la helo qualified athletes oo iyagoo qualification ta soo maray Israel rab soo maray ka qayb gala laakiin si waxaad muuqato wali inaan gaarin oo ay la tahay dadaal kuma yar rag ka shaqeynaya laakiin waxay u baahan yihiin taageeradii looga baahnaa in la siiyo dawladdu inay mas'uuliyaddeeda qaadato ganacsatada kale oo kala duwan inay mas'uuliyadooda qaataan si qiimaha iyo sharafka Soomaaliyeed loo ilaaliyo waxyaabaha aad markasta calool xumada igu dili jiray waxaa kamid ah markaad meelaha tagto oo la ordayo markii la ordo maadaama dhalinyaradan aysan tababar fiican soo qaadan dadkan waxaa laga yaabaa 5 sano ama 4 sano la soo dhaafayba wax kasta oo ay u baahan yihiin inay haysteen wadamada kale oo lala tartamayo haday cunto tahay haday korkooda sidii looga shaqeyn lahaa inay tahay annagana waxaa laga yaabaa inaan tababar fiican ayagoon haysan oonan maxaa la yiraahdaa diet-kooda iyo waxba laga warqabin inay ta la geeyo marka dhib bay ku tahay marka waxaad arkaysaa qofkii Soomaaliga ah oo dadkii markay dhamaadeen soo meel dambe soo ordaayay qofkaas waa lagu leeyahay meesha ku qoran marka Soomaali marka dadku waa ku fiirfiirinayaan marka yaxyax ayaa ku dilahay marka waxaan rajaynaynaa taas oo kale inaan ka baxno alxamdulillah ciido waa sanadkan sharaf fiican buu sameeyo dad badan baa ka dambeeyay isaga ugu dambeyn Ramla aad bay u dadaashay oo runtii iyadana dadaal fiican bay sameysay marka haddii la yiraahdo waan rajaynaynaa haddii anagoo isku duuban aan ka wada shaqeyno inaan ciyaartooy reeb ku soo baxay aan sadaqa ahayn ku socda xoogooda ku socda inaan heli doono adina la haddii la yiraahdo waa mas'uuliyadda wasiir isla 2008 ciyaartooydii Soomaaliya uga qayb galisay ciyaaraha oo adiga wafdiga hogaaminaysay waxay kala ahaayeen Allah u naxariistay Saamiya oo badda ku dhimatay ayadoo u tahriibaysay Yurub iyo sidoo kale Cabdirasaaq Kaneeco oo hadda markii ugu dambeysay xanuunsanaa ka waran ciyaarinadas iyo doorka xilligaas ay lahaayeen iyo in dawladdii ay matalayeen iyo shacabkii aysan ku ogaan xilliga xaaladda ay ku jiraan runtii arrin aad iyo aad calool xumadooda ula weeye Saamiya Cumar iyo Cabdinaasir Kaneeco labadaba dhalinyaro waxay ahaayeen waqtigaas Soomaaliya u matalayay inay ciyaaraha fursad u helay inay u matalaan ciyaaraha Olombikada dad dhalinyaro ah oo xilli adag oo wadanku dhibaato badan ku jiro run ahaantii ka soo dhaxbaxay ma ahan hataa duruufaha guud ma ahan hataa amni ahaan in wax ordaayo iyo waliba Saamiya oo kale inay dhibaato aad u fara badan ay ku ahayd dhankooda amniga marka haddana fursadaas u helay haddana markii ay soo laabteen runtii dhibaatooyinkaas kale ay la kulmeen Saamiya oo wada ogsoonahay runtii iyaduna dhalinyarada Soomaaliyeed oo wadankoodii dhibaatada ku haysata oo ka doorbiday inay naftooda iyo maxaa khatartaas ay gasho run ahaantii waa wax aad iyo aad unfortunate oo laga xumaado weeye dadkaas waxay ahaayeen inay ahaadaan dad national icon waxa loo yaqaano dad qaran oo la dhowro inay ahaadaan ayay ahayd laakiin nasiib darro wadanku xaaladdu ku sugnaayay sidoo ah dartood aysan fursadaas aysan u helin Cabdinaasir kolba asagoo wanaagsan baa ugu dambeysay duusan dib kale ka sii xanuunsan ayaa marba xanuunsaday laakiin marka waxay kamid tahay un dhibaatada dalka ka jirta ayay kamid tahay in dadkaas oo kale in la dhowro la ilaaliyo ayay ahayd laakiinse Saamiyana Ilaahay naxariista jannaha siiyo run ahaantii waa arrin aad loogu ahayd murugo weyn ugu dhalinaysa ahayd inay ilmo Soomaaliyeed oo dhan oo baddaas ku baaba'aya dhibaato ah haddana qof national icon ayadoo Olombikada Soomaaliya uga qayb gashay qaranka Soomaaliya matalaysa in halkaas lagu sii daayo iyadana dhibaatadeeda ayay lahayd su-aashan waxay ku saabsan tahay qaranka dhawaanahan qaranka wuxuu ciyaaro kala duwan isreebkii koobka dunida isreebkii ciyaarihii jaamacadda carabta ma daawataa qaranka ciyaaraysa runtii waa daawadaa markasta aan firaaqo oo waqti u haysto waa daawadaa ciyaaraha qaranka markay ciyaaraya aad baan u taageeraa marka runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa run ahaantii Soomaaliya xiriirka kubadda cagta Soomaaliya dadaal badan buu u sameeyay qaranka Soomaaliya in inta la isu keeno waliba anu dadka ugu horreeyay waxaan kamid ahaa bilaabay inay ciyaartooy uga soo diraan dibadda uga soo diraan haddana
waan u jeednaa ciyaartooy fiican oo Soomaaliyeed ayaa timaada marba waxaa laga yaabaa dadka Soomaalida marka dad wax xumeeyo un baa iska jira moogta qaar waxaa ku leeyahay markaa dhageysatid waxaa ku leeyahay maxaa ciyaartooyda dibadda laga keenay sax maaha maxaa dibadda looga keenaya kuwa halkan waa in loo sameeyaa wadda koor waa dhijir basketballka iyo ciyaaraha fudud iyo marka laga qayb ciyaartooy Soomaaliyeed dibadda joogto marka waxaan ku dhihi jiray mar walba war ilmaha ama dibadda ha joogo ama dalka ha joogo waa Soomaali xaq war u leeyahay maahan wax oo loogu talagalay oo humanitarian iyo wax la qaybinayo qofkana u xaqle iyo kana u xaqle maaha sportiga marka la muddo qofka ugu mudan oo fiican ayaa ka qayb gali kara waxaan xasuustaa 2013 ciyaaro waxaa jira lagu qabanayay geeska Africa Zone 5 oo basketball oo Rwanda lagu qabanayay 2013 January bay ahayd markaas waxaan ahaa xoogayaha guud baan ahaa Olombikada marka dadkii ciyaartooydii iyo waxaan aad uga shaqeynayay xiriirka kubadda kolayga in ciyaartooydaas fiican la keeno markii la keenay dad baa marka waxay maalinkan kula dagaalamay ma dad baa baashan waxa la yiraahdaa soo dhibaatooday dad baa soo noqday saan soo noqday kana dadkan Soomaaliyeed ku holiday uma aadin meesha duruufaha wadanka jiray dartooda dibadda u aadeen fursadaha hadday heleen maxaa la yiraahdaa chance ay heleen ay isku dhisaan ay talentigooda ay ku soo horumariyaan wadankoodana inay ku taageeraan xaq bay ugu leeyihiin marka waxaan xasuustaa ciyaartooyda intooda badan to 8 mise 9 baa laga keenay dibadda laba dhalinyaro ah oo kuwii halkan ugu fiicnaan waa lagu daray oo kuwii ugu fiicnaa dhan kastaba ciyaar ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo maxalliga basketball ugu fiicnaa marka meesha la tagay dhalinyarada markay kuwii kala arkeen kuwii labada halkan laga wada wallahi waxay yiraahdeen kuwaana kale hadii la helayo labadan boosna xataa in la soo qasaaray ma hayne inay kulli halkan Canada iyo Mareykan iyo Australia ka yimid oo ragooda in laga wada keenay marka run ahaantii inkastoo loo baahan yahay markaas in ciyaartooyda isdhexgalkooda iyo hawlahooda marka runtii xiriirada kala duwan waxay sameynayaan national team ka dad weydiisay inay ka qayb adduunka sportiga muhiimadiisu waa participation ka number 1 priority waxyaabaha muhiimada ugu horeysa waa inaad ka qayb gashid meesha la isugu imaanayo maxfalka la isugu imaanayo waa inaad joogtid dad ka maqan tahay laakiin wax jira ma tiid marka tan ku xigtaa waxay tahay inaad maxaa la yiraahdaa xoogaa aad fiican tahay oo wanaagsan tahay run ahaantii hadda ciyaari ugu dambeeyay oo hadda la ciyaarayeen Soomaaliya Cumaan la ciyaarayeen ciyaar aad u qurux badan bay sameeyeen dhalinyarada Soomaaliyeed oo isku xiran oo maxaa la yiraahdaa aad u wanaagsan marka dad la waa in wax kale la sii sameeyaa wax la rabo qofka horta waa inuu qayb ka yahay oo wuxuu og yahay haddii maxaa la yiraahdaa fursad loo heli lahaa inay dhalinyaradaas ay waqti badan isla joogaan oo beelo isugu yimaadaan oo waqti badan mid kale waxyaabo badan oo saamaxayn baa jirta adduunka waxaa laga yaabaa qaramo waxaa jira oo weli hormaray oo Yurub waxaan xasuustaa goormeed 2002 Faransiiska ciyaartooyda u ciyaaraysa hal qof oo wadankooda ka ciyaar kuma jirin Cameroon marka ciyaarayeen Senegal kulligood Faransiiska ka wada ciyaarayeen Faransiiskan hal ciyaartooy oo kamid ah Faransiiska kamid ah oo wadankiisa ka ciyaara kuma jirin marka more French waxa kuwa Senegal baa ahay kulligood Faransiiska ka wada ciyaara kuwa national teamka Faransiiska u ciyaarayna kulligood mid hal qof oo kamid ah oo wadankiisa ka ciyaara kuma jirin marka macnaha khasama qofku hebel halkaas uu joogaayo maxaa hebel loo qaadan waayo wadanka maxooga dibadiisa ma aha wariyaha ku fiican oo waxaan matali kara way marka xiriirku aad ugu hambalyeynaa runtii hawsha wanaagsan ay hayaan inay sii hagaajiyaan way fiican tahay dadka kala duwan oo ganacsatada iyo dawladuna inay qaybtii kaga aadineed inay ka qaataan ayaa muhiim haddii la rabo in horumar fiican oo la wada gaaro daawada waxaan kusoo dhawaaneynaa gabagabada wareysiga aan la yeelanayno wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya mudane Duraan Axmed Faarax su'aalaha ugu dambeeyana waxaan ka dhigaynaa kuwa iska caadiya wasiir ma daawata ciyaaraha adduunka waa fiirsaa runtii aad baan u fiirsaa ciyaaraha si waxaan aad u fiirsaa Premiership hay kooxda taageerta kooxda ugu fiican Premier waxa la yiraahdaa kooxda UK ugu Ingiriiska ugu fiican kooxda ugu roon baan kooxda ugu fiican markay dhalin dad badan ay qabsanayaan taas uma baahan in la isweydiiyo waxa laga yaabaa kuwa Manchester iyo taageere iyo Arsenal iyo Maradona soo baxay Chelsea waxa soo baxay lama rabo Liverpool oo kooxda hadda most successful team oo Premiership ka ciyaarta asla waa waliba waxa way moogtahay hadda dhalinyarada dambeysay kuwa dambeeyay Chelsea waa markii Abramovich u yimid iyo sanooyinka ugu dambeeyo odaygii maxaa la dhihi Scottishka Ferguson oo Man United joogay iyo in xoogaa koob wax ka qaadaan markaas laga yaabo laakiin kooxda la yaqaan markii anaga 8-maadkii iyo
maxaa la Kings of Europe la dhihi jiray marka kooxda Liverpool aan taageera marka inta kale waa kaftan ka mid tahay waayahay wasiir adiga sporti hadda xilligan waxa ciyaarta ma jiraan noocay noqotaba ma hadda xilli sporti la ciyaari jiray hadda waa ka weynaada waxaan inay xoog isku dhididsiin waa laga yaabaa marmar footballka inkastoo ayaamahan aan saas u ciyaarin laakiinse markaan waqti helo iyo meel dad lala ciyaaro kubadda cagta waa jecleen ciyaaro marmarna basketballka iska tuurtuure ما سنتر هاف aan jiray no nonsense center half difaaca aad oo maasata wasiir oo kaaga mahad celinaynaa wareysigan quruxda badan ama siisay ugu dambeyn adigoo wareysigan ka faa'iideysanayo shacabka taageerayaasha sportiga oo maalin loo wada arkay sida garoonka soo buuxdhaafeen taageerayaasha kooxda gaadiidka maamulka ciyaartooyda maxaa ku soo gabagabeeyay wareysiga waxaan isleeyahay horta aad iyo aad waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo astaan iyo tviyada kale oo runtii dedicated ku ah oo mar kasta sportiska iyo horumarintiisa iyo waxay ila tahay dadkaas badan oo sheegaysid iyo howlahaas waxay ka mid yihiin qaabka iyo sida sportiga hadba loo maxaa la yiraahdaa sportiga hadba looga sheekeeyo oo dadka loo jeclaysiiyo media ayaga adduunka dadka ayaga haga wax fiican ayaga ku hagi kara saxaafaddu wax xun ayaga ku hagi kara marka sportiguna waxaan isleenahay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo bulsho kastaaba haddii ay si fiican uga shaqeyso horumarkeeda qayb weyn ka qaadan kara adduunka hadda aan joogno waxaa laga yaabaa hadda Europe iyo America iyo meelaha horumaray maalmaha weekendiga oo fasaxa la yahay dadka boqolkiiba 80 sportiga ku mashquulsan yihiin haddii aysan ku mashquulsanayn waxaa laga yaabaa inay dhibaato kale ka dhacdo ilmaha waxaa arkaysaa 3 jiro ilaa iyo 8 jiro labadaas maalmood waxbaa la ciyaaraya sport bay ciyaarayaan qaar waa fiirsanayaan haddii kale waxaa laga yaabaa in waxyaaba dhibaatooyin iyo mushkulooyin iyo wax kale ay ku mashquulin lahaayeen marka run ahaantii waxa weeye waxay saxaafadan aad baan idinkaga mahad sanadahan dambe inay kusoo badanayaan saxaafadda sportiga dadkuna dhalinyarada aad u xisiiso si ay ugu xirmaan dhalinyarada sportiga waxaa laga yaabaa intay sportiga ama daawanayaan ama dhegeysanayaan inay haddaysan aysan haysan inay waxyaabo kaloo xun inay ku mashquuli lahaayeen marka waxaan isleeyahay wadankana ilaahay waxaan ka rajaynayaa nabad iyo ammaan fiican nooga dhigo sport Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada loogu jecel yahay sportiska arkaysa maalin iyo kontomeeyo kun dad gaaraya ayaan ka yaraan inay garoomada imaanayaan wadamada markaad tagtid carabtii marar tagtid ciyaaro waaweyn iyadoo la ciyaarahay garoonku iska cid la yahay cid soo galaysa male bakhtiya nasiib baa lagu soo galaya lacag baa inta ay kala siyaasad dadka soo galay lacag qaatay baawur baa lagu si u yimaadaan marka laakiin Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada aad sportiga looga xiiseeyo looga tixgeliyo marka waxaan u baahanahay in sportiga darajada uu leeyahay in la gaarsiiyo oo laga shaqeeyo aan la dhihin qofkii boos waaye iyo hal lagu ciriiriyo iyo inaan la dhihin dad u ah kuf ah oo horumarkiisana qayb weyn ka qaadan kara bulshadana si horumar fiican looga gaarsiiyo inay qaadato runtii wadankeena hadda aad buu ugu baahan yahay sportiga dib looga dhiso maxaa dhacay waxyaabaha ugu muhiimsan oo bulshada isdhexgalkeeda iyo nabadda ka shaqeeya sportiga ugu muhiimsan sagaashameeyada bilowgoodii marka magaaladu kala xirneed wuxuu isu furay sports buu ahaa labada qaybood oo marka green light aan jirin oo imaginary wadanka magaalada laga dhex sameeyay Muqdisho kale wuxuu isku furay oo maxaa la yiraahdaa xajsigaas ama green line-kaas aan la aqoon wuxuu yahay wixii baabiyo tirtiray sportigu ahaa haddana waxaa dhalinyarada oo kulli isugu imaan karto oo wada mideynaya intaas isugu keenay sport isu keenayo wax isu keeni kara inaysan jiraan marka waa in la fahmo oo dadku inay fahmaan aysan u arag dad waqti dhuminayo wax iska ceyrsanaya aan loo arkin in loo arko muhiimad uu leeyahay in la gaarsiiyo marka waxaan rajaynaynaa sportiga guul baan rajaynaynaa kooxda gaadiidka iyo taageerayaasheedana guul iyo waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo wanaagsan oo fiican aad baan usan wasiir ugu dambeyn golkulada halkan ku yaalo golkuladkaasna waxaa laga yaabaa kooxda matalist ama kooxdaada inay guul ku qaato yaa ka dhalileed waa hal fursad oo fursad dad turtid waxaa laga yaabaa inaan koob qaado kooxda ka dhalileed Manchester United okay هذا ما استوعب ما انت قدام waxaan inta kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii wareysiga aan la yeelanay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka Soomaaliya mudane Duraan Axmed Faarax tan iyo barnaamij noocan oo kale intaan wareysi noocan oo kale aan ka gaareen insha Allah waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo amaan Allah